Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, bartani waa Faa'iida Channel. Fadlan haddaad ka cusub tahay channelka, subscribe dheh. Daawadayaal, maanta waxaa sheekadeenu ku saabsan tahay ayaa waxaa jiri jiray nin beeraley ah kaasi oo beertiisa aad ugu tabcay, hase haatee aanay una suuro gelin inuu ka goosto wax midho ah. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo beerta dhex jooga ayuu hoos fadhiistay geed isagoo aad u niyad jabsan. Cabbaar markii hoos fadhiyey geedkii ayuu go'aan ku qaatay inuu dhammaan faraha ka qaado shaqada beertan. Intaanu ka kicin geedkii ayaa waxa uu arkay quraanjo yar oo geedka sii koraysa, markay figta gaadhana soo dhacaysa, haddana koraysa, markii haddana meel dhexe gaadha soo dhacaysa. In dhowra markii uu eegayay quraanjadii ayaa ninkii wuxuu isweydiiyey, maxay sababta quraanjadani ay uga niyad jabi weyday ee adigu aad uga niyad jabtay? Kabacdi isagoo cashar ka qaatay quraanjadii yareed ayuu dib u bilaabay shaqadii beertiisa, halkiina ayuu ka sii anba qaaday ilaa uu ka jaajiray kana yeeshay beero badan. Ninkii halkii ayuu ka qaatay cashar quraanjadii yareyd. Haddaba daawade, dulida sheekada ayaa ah inaanu qofku ka niyad jabin gaadhida guusha ama qorshayaashiisa nololeed.